بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waagii dadka aan ilmaha markaa yare quraanka aan fahmi jirin qaar waxay dhihi jireen quraanka waxaa lagu akhriyaa suurad wixii ka dhumay aayadaha lagu akhriyaa dhowr aayadood aayadaha birbirisan oo Allah nuuru sawaata lagu akhriyaa waa aqoon la'aanta dhahaysa qaarkood waxaa lagu akhriyaa alhaakum waa wadaysa aakhirka markaa maraysa la tus'aluna yawma idin 'an an-na'im la tus'aluna wala tusqura la tusqudniya waa aqoon la'aanteena quraanka baranayna wax laga wadana ma naqaan wali qof weyn loo sheegay waxaas qof weyn aan lahayn la tus'aluna ku akhriya la tusaa laga wadaa waa qodobkaas isna waa noo socon waay guriga tagtay critical thinking la soo aatir baryaha dhigtaa waa laga yaaban yahay gabar walaasha walaalkaalay meeshan faradhaqa oo wajiga dhaqada lagu dhaqdo meeshan gacbiyaha ayaa iga xirantay markaan saxamada aan dhaqayo way xirantaa ee halkii uu reeyada bilaaba waa rinjiyeyna halka koowaad waa rinjiyeyna halka labaad waa la fujinaa halka saddexaad qofaa loo yeeraa hagaajiya war waxaas ma rabee wixii aad soo baratay igu xalli weydii marka barnaamijkaas waxaa barnaamij goormuu dhacaa wuxuu dhacaa markii alaab badan lagu qoro oo biyuhu isku bataan wuu xirmaa wiil fariidaa tahay waxaa tiri 3 arrimood mid ku xallinaa kow bam gareeya baasha bam gareeyo labo biyo kulamaan ku subnaa 3 aashita ku subnaa 3 haddana waxaa la yidhi kala saara war ama qaab dhib laabay jiraan intaan biyo ku shubayno karkarinayna ama ku gubanaa dhibka biyada aashtadu ama dhib noo keentaa aashtada biyo lagu shubo kor ama biyaha ka aashto lagu shubo taa la hormariyo hortole taa horeysa biyaha hoos yaala kor ba aashto lagu shubaa mas aashta hoos dhigayo biyaha kor lagu shubaa ya koreeya biyaha ba koreeya باي كان معناها اشتغل لقى بيا الوسوا ما يودي دين صار بيا هيك الريد بيا مليون اشتغل الوسوا marka mida qaadayna laba ogola in aashita meelta la biyo kor laga shubo ay soo fariin toma lama ogola xisadaas waxay ahayd xisadii chemistry-ga biology-ga macalina yimid wuxuu dhageysta caloosha waxa ku jirta aashita hydrochloric acid ku jirta hydrochloric acid caloosha ku jirta sabiyo loo cabaa guriga tagtay hooyada biyo cabaysa hooyo jooji maxaa dhacay aashita kor uga shubay biyo aas aashita ku jirta hooyo aashita kor uga shubay waa la soo diiday wanaga tag walaga cabi jirnay biyo anaga aan nool waxa dadka maxayeen oo si ay kula duwayeen ma fakarno aashita caloosha ku jirta iyo aashita banaanka taal ma kala duwayeen waaga yaray waxa la yaabi jiray caloolida maarteen caloolida shukumaanka qaybta week shukumaanka waa cunaysaa caloosha waxa laga dhigaa iskola lagu dhigaa caloosha shukumaan waa laba shukumaane say kala taqaanaa calool lagu nidi tii banaanka taho calool banaanka laga keeno waa taadi la shiida bisana la shiida تشيلي عرون سبعون تان سيبري نوشة يقولون كلماتي ولي لما هنا هؤلاء والنا سوانا مني وروح معانا بس هذا اللي كان كبار ريال هذا كبار ريال شو كمان كنا واحد تان شو كمان كلا شيء ده شو كمان شيء ده واحد بتمنى لكن قف كيف كروان تسألك عليه بروبلم أنا ما عندي سوق عبني بروبلمك أها لقتي قارقة بيا كابا انجرتي ميل بعادة واتكب حساب عادك لقتي وابع حساب بولا شارمين هل بول ملي حسب هنا قلت كالتي قرا براتي حمراء وحاوعسة وحا بوسد يسو دي بول ايانو بافرت بول يسو دي in meeshaan iska maraaya oo aan waxaas iyo critical iyo adduunyada aan baran laakiin waxa sax fahamsan
oo aad naftaada aan la yaabada waxaan muxuu yahay leedahay akin maxaad wacaysaa maya bacaadkaana iga dhumeene meela raadinay may kula raadinay dariiqa ka fowda ku sheegaya maxay tahay gaariga meeqa lugood kala taal 3 lugood hadda aan hal bool ka bixino ka waran min hal bool ka bixino gaariga ku xirno soo ma dhamaanin ma xalinay mase meela waxe meel doona joogta ay soo dhiiba ma dhaxna mase waxaan leenahay war boolkan 3 ka bixi kad annaga waxaan rabaa markasta aqoonteena inaan uga faa'iidaysano noloshayna aan tarto sabab aqoonta aad baranaysaan hadday waxba tari weysaan iska tuura ama tan gaari gacan magaalada waa yaallay soo ma yaallo haddaan wax baranayo waxay taro dugsi sare ka soo baxday waan soo dhamaysay su-aasheedu waxaa weeye waa tee maadooyin ka mida oo ku shaqaysan kartaan tee waan igalaan lahadaya af soomaali warqad fiican oo ku qoran boqori karnaa haa maa dhahdaan maxaa u diidantihiin af soomaali warqad ku qoran oo cashirka maanta aan sheegayay soomaali aan ku sharaxdo ma yeeli karaa mid ingiriisa ku qori karaa ya korontadii ka tagtay guriga kaa tagtay korontadii aa guriga kasta ma xallin kartaa problem solving soo maha korontadaa tagtay guriga waa baxday dam qadoo akhrisanaya oo critical thinking akhrinaya ay dam tiri nin baadiye laga keenay oo la geeyey meesha ka shaqeeya meesha korontada aa wacday waxaan rabaa korontada ayaa iga dantay qolka wuxuu ku yidhi iga raalli ahowe bal qolka kugu hixi soo fiiri waa soo fiirisay waa daaranya ninka ku noqonay waa xishoorisa ninka waa ku noqonay qolka kugu xiga waa daaranya hadduu ku soo waca aragto wax iska dhiga ma qaban karti ilaa waa ceebowdee wuu ku soo waca qolka kugu xiga ma daaran yahay waxaa tiri waa dansay ama adaa fiiriyaba gurigiinaa fiirisay waa dansanya telefoonaa ku celisay guriga dhanaa dansan wuxuu ku yidhi bannaanka u bax ma daaran yahay bannaankaa u baxday waa daaran yihiin maxaa waa mashkiladdu maxaa bannaankaa u baxday waa daaran yihiin waa la hadashay waxaa tii wuxuu dhegeyso raalle ahow annaga teena waa dansantahe kuwa daaran waa shirkad kale shirkadaani ma ahaba koontoorahaba fiiri meesha laga daar laga dambeeyey ma dhacsantaha ma dansantahay soo ma rabna inaan waxaa inta problem isu geena aan xalisano cilmi aan fakir lahayn waqti u dhumis wey kritikadii daba bana waa inuu xitaraani kow qofka horreeya xitaraya wiilkaas gadaal fadhiya baa su-aashaan weydiinayaa gadaal fadhiya magaciisa muxuu ahaa halkan su-aalaan weydiinaya bas su-aal badan weydiina halkan su-aalaan ku weydiinaya baabuur baa saaran tahay aad buu u dheeraynayaa kabti baa kaa dhacday kab baa kaa dhacday kabti baa dhacday soo inaan xallina maaha ani kabti kala raacin lahaa adigaan maa ka degan laydeen mastuura layd kabtaan ma dhacday haa mana la istaajinay miyaa kabti kala raacin qofka heli doona laba ka wada hele soo maha wax ma tarayso bini aadamka anfac samayn haddaad rabtaan inaad wax xallisaan waa inaad fakertaan sida fiicanna u fakertaan ma waxa habboon inaan wax saxa samayno ama si saxa inaan u samayno kee fiican si sax miyaa kee fiican wax sax samee ama sida saxa u samee sida saxa miyaa sida saxa qof haddaad macnaha rabto inaad dhulbaxdo midigta haku bidixda kaga dhufa miya hee kuwa meel fadhiya oo khamro cabaaya aquuti markaas dhegeysta midigta ku caba miya oo bisinka u qabta miya ma sida saxda ahaa mase wax saxan oo sida saxda loo sameeyaa la rabaa ya casharkii u dambeeyey ee aad dhigadeeda wuxuu ka hadlayay markii aad shay u yimaado feker cusubaa yimaada fekerkaas cusub iyo fekerkii hore waa la ysku daraa feker kalaa ka soo baxa shay kasta ma saasaa wax kasta ma saasaa haddaad tidhaahdo wax kastaan ku dabaqayaa ya
had wax ani aan wadaagi karno war adi maxaa labadiina waxaa isku haysataan shaygan isku haysanaa mid cusub ay soo jeediyey oo labadiina ina anfacda waa qaadanaysaan laakiin meel kasta ku dabaqanaa xaq waa xaq baadil waa baadil inta la soo keena xaq baadil ma jiraa ma imaanayaan maya xaq waa xaq baadilna waa baadil laakiin waa fiican tahay shay fiican iyo kasii fiican waa ka hadli karnaa xumaan iyo samaan mararka qaarkood shay baa loo fiiriyaa culamada muslimiintu aad uga hadlaan shayga fiican in kasii fiican shayga xun mid kasta waqtigu ku habooye iyo wax la samaynayo hay jaanis ayaan siinaya markaan si aa problemkeena u xalisataan problemkeena ina xalisataan yaa hal qof waxaan rabaa inta soo istaaga oo problemkeena ayna xalinaan rabnaa problemkaas inta aanan wax kale u gelin hal qof idinkeeda ka mid ah oo problem soo jeediya oo xaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهرين مغعيد ورسمه نور محمد دكتور جامعه الجزيره باج 14 maadaama soo baranayna muddo maadada ku saabsan critical think hab fikirka iyo hab falanqaynta loo sii sheeg loo saxa mise loo xaliyo muujada dhibaato ku soo wajaha markaas tusaale maan horo anagoo ka duulayna sahanka ka yimid maadada critical thinkers ayaa arday ka mid galaaskan aan dhigano ayaa waxaa isweydiinay maadaama baranayna maadadan in anaga dib u eegis ku sameyno oo su'aalo dhaxdanada iska weydiino yar ka mid ah su'aasha weydiiya waxaa ka mid ahayd arday aad tahay saaka xaafadda ka soo tagtay maad soo quraacan xaafadda ku laabatay wax qada xaafadda kama karsana maxaa xal xal lagu xalinaa wuu soo booday wuxuu yidhi xaafaddan tagay qado waa ka wayso maaha telefoonkeeda lacag ka fiirsanaa kuma jirto ayr waalidkan waa caawir kadib wuxuu yidhi maqaayadan aadaa waa ka soo qadaynayaa arday kaloo garab fadhiya wuxuu yidhi saas maase ka duwana noo hayaa oo ah xaafadda markaan tago oon dhex galay su'aalaha dadku weydiinaya waxaa ka mid yidhi mise maamada xaafadda joogta mise hooyadii aan noqoto mise qaraabo kale ku tirsan ahaato kow maamada horta xanuunsan oo jikada gelaysa maya ka dhaho miraashina xaafadda yaano ka go'on waa ku soo celinay waxaan dhahnay xaafadda raashin maba yaalow ku kala soo boodo wuxuu yidhi waxaasoo dhan wax ka fiican noo hayaan maadaama wuxuu yidhi xaafadda raashin ka go'an yahay anigana telefoonka hadday lacag iigu jirto waxaan samayn lahaa maqaayadan tegi lahaa carruurta iyo maamada iyo aniga wuxuu raashin noo soo wadagedi lahaa halkaasaan ku wada qadayli lahayn marka hab fikirka dadka aadanaha isku mid maaha kii hor haddaan ku laabanno wuxuu yidhi maqaayada aadi lahaa ka war saaka carruur yar kaa yar walaalaha ka soo tagtay xaafadda ka soo tagtay ayaga way baahan yihiin maamadana way baahan sooma maqaayadaa tagta waa soo saarsatay keligaa calashan way soo saarsatay waxaan ka wadaa keligaa soo noolaaday marka ugu dambeyn waxaa ku soo gabagabeeday critical things qofka way dhistaa aqliyan ninka miyiga joogo oo geela dhaqaalaysta wuxuu garanayaa maalinka geela kala dambeedku le waa cabbi rabo xitaa maalinka saddex sokor ka go'an tahay saliidda ka go'anta magaalada maadilaa geeliisa waraabsada marka atristo waxaa rajeynaa dhalinyaro deegaanka dab ku soo kacaysaan nahay critical thinking inuu naga beddesho bedelaaddeena bedelaysaan waa inay noqoto mid wanaagsan oo positive ah soo professor cabdirasaaq maxamed caashuu sheegay waa inay nala aadin meel kaloo muujado dembina gelinaysa guuldarana noo horseedaysa marka assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu